dhaqanka maamulka degmada Boolabarde oo si ilaa shalay shirar sidii wax looga qaban lahaa al-shabaab oo looga dulqaadi lahaa ummadda aan ka tashanaynay shirkaasina wuxuu ku soo gabagaboobay si macno ku fadhisa runtii waa u mahad celinayaa odayaasha sababtu tahay kuwa indhaha naga eegayo derbiga ka xagga fadhiyaan ku soo dhac jirnay waqti dheer laakiin haddii Allah idmo waxaa la yiri degmo waatii shuruuday ku jirtay waa intii intaas hoosaba oday dhaqan waxaan u aqoonsanahay dagaalka kii nagala qayb gala kuwii booca lagu dhisay booco oo aan garanayno hebel iyo hebelkooda ma noo noqon doonaan odayaal dhaqan kuwa u haysta maxmiyad ama inay ku qaraabtaan magaca qabaa'ilka ama jifo hoosaadkana ma u aqoonsan doonaan nabadoon waxaan u aqoonsan doonaa kuwa go'aansaday dadka ay madaxda u yihiin oo mas'uul ka yihiin in ay ka dulqaadaan cadawga oo ay mobilize gareeyaan ama abaabulaan kuwaasaan oday dhaqan ah maaha ku kale oday dhaqan taa hadda inta uga gudbo aniga magaalada Beledweyne maalintii al-shabaab howlgalkiisa aan bilaabay waxaan uga baxay jihada waqooyi galbeed waxaan xuduudda Itoobiya ka galay degmada Feerfeer waxaan uga baxay gobolka Qorraxay meel la yiraahdo laba baar baan ka jiiray ceel habreed halkaasaan maray ceelin madax maroodi baan tagay halkaasaan soo maray muddo dhul dhan 200 kilomitir ayaan xuduudda dawladda deegaanka kilinka shanaad ayaan ku dhex socday mahad ballaaran ayaan iyagana u celinaynaa saraakiisha ciidamada iyo dawladdaba sida inooga garib istaageen taakulaynta san cadawga isaga qaadi lahayd runtii si ballaaran oo walaalnimo leh oo kalsooni leh oo dadnimo ku jirtay inoo garib istaageen maantana waxaan lu ku soo galay degmada Boolabarde insha Allah ku eemid difference u dhaxay waa garan kartaan maalin Beledweyne waqooyi uga baxay anoo laamigi madoobay marila maantana anoo lugaynaya ayaan laamigi madoobaa ku soo galay degmada Boolabarde waxaan ilaahay ka rajaynayaa shabaab goormaan noogu dambeysay in dadka reer Hiiraan yiraahdaan aan ilaahay ka rajaynayaa wali ma dhihi karo waa la guuleystay sababtu tahay inta hooyo Soomaaliyeed asay qaadayso iska daa ku Hiiraan inta hooyo Soomaaliyeed asay qaadayso ma dhihi karno waa la guuleystay sababta dalkan u dhalanay canshuurta dalka waxna lagu soo baray waxaana loo soo diyaariyay difaaca wadankan aniga ciidamada Soomaaliya ka mid ah waxaana lagu aakhiriyay oo maskaxdeena dhabti looga dhigay inaan ilaalino shacabka iyo dhulka iyo diinta iyo dadkaba inaan ilaalino maanta aan mas'uuliyadda Soomaaliya aan qayb ka mid ahay inkastoo ay aad u yartahay oo ay ku kooban tahay Hiiraan ku kooban tahay haddana raalli kama noqon karno qalbigeennuna ma liqi karnaba inta gabar Soomaaliyeed asay qaadayso oo cadawgii nool yahay waa guuleysan afkeenu ma karo laakiin isku day fiican baan joognaa isku day fiican waxaan rabaa inaan si guud ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada ciidanka dib u xoreynta hubka wadata oo aan garanayo rafaadka dheer ay soo mareen iyo dadaalka dheer oo ay cadawga siday u naafeeyaan aan garanayo waxaan rabaa inaan u mahad cesho waqti dheer ila soo maray dhul badan iyo kuwa hadda dhiman waxaan ugu baaqayaa kana codsanayaa inay sida kuwaas u soo howlgaleen ayaguna u howlgalaan oo cadawga iska dulqaadaan waxa mudan inaan u mahad celiyo ciidanka Soomaaliya ayaa naga mudan inaan u mahad celino
qaar badan waa ku dhex jireen oo aan garan laanahay ujeedadoodii iyo siday u fakarayaan aan garan laanahay waa ku dhex jiraan laakiin waxa badan kuwa sida wanaagsan u shaqaynayay waxa xusid gaar naga mudan taliska xoogga dalka Soomaaliya sida uu noola shaqeeyay aanan hilmaami doonin taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigaba sida ay noola shaqeeyeen ma hilmaami doono inaan xusnana waa naga mudan yihiin waxaan rabaa balanteenu waa shaqo maxay ahayd heystii balanteenu waa shaqo